tusaale ahaan eega geed galool ah haddii aan laan ka soo gooyo oo aan dhulka qotomiyo laantaasi ma baxayso way qalalaysaa geed quraca haddii aan laan ka soo gooyo oo laanta iyadana aan dhulka qotomiyo oo aan ka tago iyaduna way qalalaysaa laakiin hal geedaan idin sheegi oo dhirtaa ka mid ah geedkaana ha isku dayina 10ka aan idin soo qoro idin leeyahay inaad ku soo dartaan geedka malmalka la yiraahdo malmalka haddii aad goyso oo aad dhulka saa u qotomiso ama aad dhinacii aad ka goysay dhulka u saarto wuu baxaya su'aashii ay idil ina weydiisay ee macal anigu aan garan waayay idinkuna aad garan weydeen dhalinyaro fara badan oo waa diin kale baan arkay diinka ma noqonayso wixii bishii 30 habeen halka mar akaaca waxa weeyaan xayawaanka loo yaqaano ashamsu shababi waa lagu gabooba washuyuuqu nisaa'i waa lagu gabooba washarbul makhaydina waa lagu gabooba saddex baa macaan sheegtay saddex ayaa macaan sheegtay saddex baa ka maqraati kacay saddexna waxba kama og ajnabi ah oo aan Soomaali ahayn nin ajnabi ah oo aan Soomaali ahayn oo aan dadkeena Soomaaliyeed ku jirin inuu dhabuub yahay ka soo qaad ama nin cadaanaba yahayba waxa weeyaan xitaa diirkeena madow aan lahayn ayaa waxa weeyaan gabadhiisii aad guursatay isaguna gabadhaadii ayuu guursaday afartaas su'aalood iyo jawaabahooda insha Allah kariim isku soo daya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halkan aad iga daawanaysaa waa Axmed Eesh Cala official ciidan ku soo horfadhida ee hadalka iyo horaarta kula wadaagaysana waa aniga oo ah Axmed Eesh Cala dhalinyaro soo dhawaada waayeel soo dhawaada kullay dadkan ku xiran Axmed Eesh Cala official dhalinyaro iyo waayeel ayay u badan yihiin waayeelka oo inta badan ah dad murtida taageera iyo waxyaabihii afkeen iyo dhaqankeena ku wanaagsanaa iyo dhalinyarada oo iyaguna sidoo kale taageerta waxa ay waayeelku taageerayaan iyo waliba kacaankeena dambe waxyaabaha inuu aad ka xiisaynayno aad iyo aad baan idin wada salaamayaa dhamaantiin soo dhawaada halkani waa halkeenii waa halkaygii waa halkeenii inaga iskale haddii aad hore noola joogtay oo channelka aad hore noola joogtay aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddii aad nagu cusub tahayna waxaan ka codsanayaa wixii la iska codsan jiray bartan baraha bulshada gaar ahaan si YouTube-ka waa lagu baryootama baa leeyahay waa meel lagu baryootama waxa ay sameeya baryootankii qayb kamid ah anaguna wadaayo waxaan ka codsanayaa inaan subscribe to hooy sida ma garan loo toojiyo insha Allah meesha yara cas inoo caday aad baad u mahadsan tahay kambalaalkana furo waxaan idinka raali gelinayaa bisha Ramadaan ee barakaysan in aan isu soo bandhigno waxyaabo maaragtay murti iyo madadaalo ah ayaa insha Allah ku balansanay laakiin Ilaahay amarkii waa inoo suurtagali weeday hadda ayay maaragtay qaybaheedii u horeeyay kulay aan soo guda galayna insha Allah waayo adduun ayaa ina yar kala mashquuliyay aad iyo aad baad u mahadsan tahay subscribe-tii aan codsaday haddii aad inoo saartay haddii kalena mar kale aan ku xasuusiyay inoogu toojiyo insha Allah aan barnaamijka inoo guda galo maalin dhaweyd aniga iyo dhalinyaradayda midnimo qaran qayb kamid ah su'aalo aan idin weydiinay baa jirtay su'aalihii si fiican baad uga faallootay si fiicanna waad uga jawaabteen waxaan aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada saaxiibul aqliga ah ee su'aalihii isku dayeen inay ka jawaabaan waliba jawaabtay kartay su'aashii ahayd saddexda qof ee talaabayay toga biyaha ah ee mid biyuhu ay taabanayeen ee uu arkayay ay talaabayeen midna uu arkayay ee ayna taabanaynin ee uu talaabayay midna uuna arkaynin taabanaynin ee uu talaabayay waxay ahaayeen hooyo ilma dhabarka ku sida ilmana caloosha ku sida ilmaha ay dhabarka ku sida biyuhu ma ayna taabanin wuuna arkay wuuna talaabay ilmaha ay caloosha ku sido biyuhu mana ayna taabanin wuuna talaabay mana uuna arag iyaduna biyuhu wayna taabteen wayna aragtay wayna talawday aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad baa loo gartay dhalinyarada garatay saaxiibul aqliinta aad baad u mahadsantihiin su'aashii ay idil ina weydiisay ee macal anigu aan garan waayay idinkuna aad garan weydeen dhalinyaro fara badan oo waa diin kale baan arkay diinka ma noqonayso wixii bishii 30 habeen halka mar akaaca ee ay ina weydiisay waxa weeyaan xayawaanka loo yaqaano
maas cagalayda ama maas lugalayda xamaaratada ah weeyaan xayawaankaas oo waxa weeyaan maaragtay bishiiba hal mar abay kaadida waxa weeyaan intii su'aalaha garatay aqliga waad ku qabtaan intii aan garaninna inaan eego u faa'iideyno ayaan meesha waxa weeyaan u nimaadnay waxa kale oo meesha u imaaday kow mahmaahiro carabiya oo qosolkeeda wadata kaftankeedana wadata inaan idin la wadaago midna waa mid labaad su'aalo inaan idin weydiiyo afar su'aalood inaan iyadana idin weydiiyo afartaas su'aalood dad intaan meesha soo fadhiisiyo oo weydiiyo oo ay gartaan oo daawataan waxaan ka doorbiday su'aalahan inaan idin soo weydiiyo isku daydaan soo comment garaysaan commentiga aad ku soo bixisaan aan ogaado dhalinyaradayda iyo dadka aan ka dhashay ee Soomaaliyeed bal aqligooda iyo garashadooda halku gaarsiisan yahay su'aalahaasi kuwa diini ah iyo kuwa dhaqankeena ah labadaba way isugu jiraan afarta su'aalood baan idin soo bandhigi doonaa aan ku horeyna قال العلماء العربيين عربت علماء waxay yiraahdeen ashamsu shababi waa lagu gabooba وشيوخ النساء waa lagu gabooba وشرب المخيدنا waa lagu gabooba ashamsu shababi waa lagu gabooba cadceeda barqadii afalaadheeda waa lagu gabooba oo barqadii markay tahay hadii aad cadceeda falaadhaayda isu dhigto hore baa loo gabooba وشيوخ النساء نوالو قبوبة إسلام هواوين قورس شدودنا نوالو قبوبة وامدكلا وشرب المخيل نوالو قبوبة عيرتا دمستيذ نوالو قبوبة آدي أدبد ما تنتهين إن معناها قابكا إن صير خريو إن قابكا واحد صير لكم إن أنا نكا قصليو أي كلي إيقا أحد وحويان الشمس الشبابي عاد عصركي فلارهيدا فيتامين دي ayaa laga qaadaa dadkana daawo ayay u tahay laakiin barqadii عاد فلارهيdu hadii ay ku dhacaan dadka durbaad ka horgaboobaysaa islaamaha waaweyn hadii aad guursatana bay yiraahdaan carabtu iyadana durbaad gaboobaysaa dadkana way ka maamaahana waxay dhahan adoo dhalinyaro hadii aad islaan guursato dhuuxaaga irra ayaa ka soo bixi bay yiraahdeen ومن صدحال عيرت دمستيدا iyadana waa lagu gaboobo dhahan baashaas maadaama aad u dhanaanta hadii damisteeda badsato iyadana dirbo wad gaboobaysaa kaftan ahaan aan u qaadanay insha Allah waxaan toos u guda galeynaa su'aalihii inaan idin weydiiyo ay ahayd kulka sida daraadeed daawaday waxaan ka codsanayaa inaad like saarto commentina aad ku soo daydo afarta su'aaloodba inaad ka jawaabto bal aragtidaada aad ila maasho su'aalaha aan ku socdo su'aasha koobaad inaan idin weydiiyo aan meesha u soo fadhiistay waxaad sheegtaa ama aad garataa ama aad soo qortaa 10 geed waa 10 xabo 10 geed oo dhirta dhulkeena ka baxda kamid ah oo 10ka geedba dhirtu kolka la beerayo midho ayaa la soo qaadaa midhaha ayaa meel lagu ridaa midhaha ayaa baxa 10ka geed midho way ka baxaan oo midhay ka baqlaan laakiin laan kamid hadii aad goyso oo meel aad dhigto way baxaysaa iyada baxaysa laantaas hadii allaan dhexda ka goyso oo dhulka aad sa ugu qotomiso oo iskaga tagto iyada baxaysa dhulka dhirta kama dhulka wax weyn midha kuma baqlayso midhana way ku baqashaa laakiin iyadoo gaar ah hadii aad goyso oo dhulka dhigto oo qotomiso way baxaysaa tusaale ahaan eega geed galool ah hadii aan laan ka soo gooyo oo aan dhulka qotomiyo laantaasi ma baxayso way qalalaysaa geed quraca hadii aan laan ka soo gooyo oo laanta iyadana aan dhulka qotomiyo oo aan ka tago iyadana way qalalaysaa laakiin hal geedaan idin sheegi oo dhirta kamid ah geedkan ha isku dayina 10ka aan idin soo qoro idin leeyahay inaad ku soo dartaan geedka malmalka la yiraahdo malmalka hadii aad goyso oo aad dhulka saa u qotomiso ama aad dhinacii aad ka goysay dhulka u saarto wuu baxayaa oo wuu baqlayaa wuu fufayaa caleen ayuu bixinayaa sida daraadeed 10 geed oo sida geedkaas oo kala ah oo marka laanta la gooyo waxa weeyaan in meesha la qotomiyo baxaya soo qor aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadka dhaqan aqoonta ah kulli way garan karaan waa su'aasha koobaad su'aasha labaad waxaad ii sheegtaa
laba waajib oo laba sunne ka ajir badan ilaahay waxa uu kugu waajib yeelay ee rabbigu kugu waajib yeelay iyo waxa ilaahay sunna uu kaaga dhigay ee sunna ahaanta ah weligeedba waajib iyo sunne waajibka ayaa ajir badan wax dooniha ahaade waa wax rabbi kugu waajib yeelay iyo wax sunna ah waxa waajibka aba ajir badan bal haddaba waxaad ii sheegtaa labada sunne ee ka ajir badan labada waajib aad iyo aad baad u mahadsantahay waa su'aasha labaad su'aasha saddexaad ee iyadana inaan idin weydiiyo aan meesha u soo fadhiistay waxa weeyaan saddex baa macaan sheegtay saddex ayaa macaan sheegtay saddex baa ka maqraati kacay saddexna waxba kama ogin ayay yidhaahdeen lixdaas in aad soo qorto iyadana isku day saddexdii macaanka sheegtay iyo saddexdii ka maqraati kacay iyo saddexdii waxba kama ogin annagu yidhi iyagana inaad soo qorto isku day waa su'aasheena saddexaad ee meesha taala waayahay su'aasheena afraad ee iyadana inaan madasha soo dhigno ama aan idin weydiiyo aan maanta meesha u soo fadhiistay ayaa iyaduna waxay tahay nin ajnabi ah oo aan Soomaali ahayn nin ajnabi ah oo aan Soomaali ahayn oo aan dadkeena Soomaaliyeed ku jirin inuu dhabuub yahay ka soo qaad ama nin cadaanaba yahayba waxa weeyaan xitaa diirkeena madow aan lahayn ayaa waxa weeyaan gabadhiisii aad guursatay isaguna gabadhaadii ayuu guursaday gabadh kolkan leeyahay waa inantii macnaha aad dhashay ayuu guursaday adaguna inantii uu isagu dhalay baad guursatay waa istaba marsateen labadiinii gabdhood waayahay gabadhaadii ilma ayay dhashay inantii aad dhashay ilma ayay ninkii u dhashay adiguna qoftii aad guursatay ee ajnabiga kala ahayd ayaa ilmo ku dhashay labadaa ilmood maxay isu noqon karaan ama maxay isu yihiin waa su'aasheena afraad ee iyadana meesha inaynu keenno aan meesha u soo fadhiistay afartaas su'aalood iyo jawaabahooda insha allahu kariim isku soo daya in aad soo qortaan oo aad garataan waxaan aaminsanahay dad badan oo saaxiibul aqalina idinku jira dadkayga Soomaaliyeed dad aad u aqli badan ayaa ku jira aad baan idin jeclahay meel kasta oo joogtaan daafaha dunida aad kaga sugan tihiin waxaan leeyahay dadkayga Soomaaliyeed ilaahay nabad ha ka yeelo intii carri kala joogta ilaahay shisheeyaha ay la joogaan bogooda burcad ha u mariyo meesha joogaana Allah ku nabad geliyo inteena kale ee wadankeennii hooyo joogtana ilaahay nabad iyo amni Allah ay nasiyo dalkeena iyo dadkeena kuwii hormarsada ee meel fiican gaadhana Allah ay naga dhigo ilaahay baan markasta tuugaynaa insha Allah kariim dhibaatooyinka wadankeena ka dhacayana waan ka bixi doonaa insha Allah ilaahay sida aan ka rajeynayno meel fiican ayaan gaari doonaa afartaas su'aalood insha Allah inaad soo garan doontaan ma rajeynaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa weeyaan like-ta muuqaalka loo ogow haddii aad barnaamijkaygan ka heshay ama uu ku qanciyay mudane ama marwo aad baad u mahadsan tahay commentigana insha Allah su'aalaha in aad iyadana ka jawaabto waad isku soo dayi doontaa insha Allah kariim si share gare aad iyo aad baad u mahadsan tahay bisha barakaysan haddii alla yiraahdo maalmihii hore haddii aan kala habsaanay muuqaalkana aad igu tusisaan in uu muuqaal wanaagsan yahay oo aan halka ka sii wadno insha Allah kariim waan sii xoojin doonaa aad baad u mahadsantihiin meel kasta joogtaan waxaan idin leeyahay nabad bashbash iyo baraaro ku waara